maanta waxaan ka hadlaynaa forever alaabahooda waxyaalo badan ay u qaybsamaan oo qoloba dhinaci u cuntaa. maanta waxaan ka hadli doonaa qaybta lafa xanuunka insha Allah tacaala. dadka lafa xanuunka qabo, haddaad tagsiilo tahay, haddaad taraagla tahay, haddaad qof hore banuuni ama ciyaartooy u ahaato lafuhu ku xanuunaan, haddaad tahay hooyo lafuhu xanuunaan, qof kasta ayaa isticmaali kara. horta qof yar iyo qof weynba. forever freedom waa cabitaanka, kaasna waa jeelka korka la mariyo MSM. meel kastoo adduunyada ka joogtidna waa lagu diiwaan gelin karaa. ma aha inaan inta kuu soo dirahayo lacag kaa bixayso, meeshay joogtaan kugu diiwaan gelin karaa insha Allah, oo aad ka dalban kartaa. qof kastoo forever gadana waad ka dalban kartaa. haddii lafuhu ku xanuunayaan, intaad cuni lahayd xanuun baabi'iye oo maanta oo dhan xanuun baabi'iye dhib ku gaarsiinaya, wax dabiiciya adoo cabtidaa ka fiican. qofkii ilaahay ugu talagalay muddo markuu wada xanuunku wuu ka tagaa. qofkii kalena wax jirkiisa u baahan yahay waa dheeli inaa u isticmaashaa cabitaanka. hadda forever freedom oo kale 80% waxa ku jira waa aloe vera. kambaniga inta badan alaabtiisa aloe vera ku daraa. inta kalena waa maadooyin kaloo badanaa badda laga soo baxshay, vitamin C ga kula jiro. marka insha Allah Soomaalida waliba jiradan aad inuu ugu badantaa amleena anaga riixaan dhahnaa. riix Soomaa dadka lafa xanuunka haddaana qaldaneen insha Allah dadka riixa waxa la dhahaa qabo kale lafa xanuunka, lafa jajabka qabo kale waa la siiyaa. kiimikada intii laga fogaan karaa laga fogaado insha Allah. waxyaalaha dabiiciga ah la cuno. dhowr qof oo siiyay alxamdulillah aaday ugu fiicnaadeen. qofkii ilaahay ugu talagalna wuu ku caafimaadayaa, qofkii kalena wuxuu u noqonayaa wax uu muddo wado oo kaniiniyaasha xanuun baabiyaasha ugu roonaado. waa igala soo xiriiri kartaan meel walbaad joogtaan. waan hayaa qof alla qofkii garanaya qof forever gado. haddaad hore u maqli forever inay alaaba lafa xanuunka hayso, waa kuwaasaa oo u tegi kartaa. waa dhigi kartaa jeelkaas iyo waxaan rabaa cabitaankaas. soo dhawaada saxaabay.